Cuqaasha waxgaradka waayeelka labadii beelood ee dirirtu ku dhaxmartay deegaanada degmada Celifin ee gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay inay gaareen nabadgelyo isla markaasina ay ka heshiiyeen wixii dhacay waxaana kulanka ballaaranay nabadda ku qaateen waayeelka labada dhinac ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Sanaag maamulka degmada Celifin xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland iyo cuqaasha gobolka Togdheer waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay waayeelka iyo cuqaasha labada dhinac ee dirirtu ku dhaxmartay deegaanada degmada Celifin ee gobolka Sanaag waxaan halkan ka jeedinaynaa baaq nabadeed iyadoo horeba loo jeediyay mar labaad ayaa waxaanu jeedinaynaa baaq nabadeed ayaanu ka jeedinaynaa degmada Celifweyn iyo shaqaaqooyinkeedii iyo colaadii ka dhacday annagoo labadii beeloodba oo maanta wada joogna ayaanu baaq nabadeed iyo xabad joojin ayaanu halkan ka jeedinaynaa sida ummadda ay qusayso ee deegaanada Celifweyn ha ogaadeen iyo ummadda kale ee muslimka ah ee meelaha lagu ilwaaheersanayaba intuba sidaa ha ogaato baaqa nabadeed ayaanu maanta jeedinay cid walbana dan u ah nabad caama baanu jeedinaynaa mid qoysaska wax kala galeena baanu jeedinaynaa mid degmada iyo gobolka baanu jeedinaynaa mid dadka wada gaadhaanu jeedinaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu aqbalo isaga aqbalaada leh isagay gacantiisa ku jirtaa nabadgelyada iyo wanaagga iyo khayrka mid walba isaga iyo qadartaba isaga gacanta ku haye ilaahay inuu aqbalo oo nabadda isagu daadijiyo oo ay mid dhaxal noqota ilaahay baan weydiisanaynaa casishu jalla ayaanu weydiisanaynaa waana naga dhab waa naga calool waa naga niyad ilaahu waad maqlaysaa been maaha calooshayda kuma jirto colaad iyo xumaan iyo dhib dambo dhacda ilaahu mid niyada baan kula hadlayaa ilaahu noo aqbal war inta dambe aanu talinno inta dambe nool nin dhintay dhimay inaguna soo noqon maayo waxaan leedahay inta dambe aanu talinno oo wax badan baa layna dhaariyey waa degi weyday waa laynala yaaban yahay wixii waddanka joogay ummaddii waddanka joogta ee Soomaaliya ama cid kale ahayd uma 10 goor la dhaariyo lama arag dhaartu waa mid waayaheeday leedahay war aan dhaarta tixgelinno war aan ismaqallo war aan ummadda maqallo war aan ilaahay ka yaabno waa isognahay wax badan bay waxaa layna leeyahay inaga dhaadhici waayeen war maanta ha inaga dhaadhaceen war islaamka aan ka yaabno aan ilaahay ka yaabno inagu aan isla yaabno aan eegno halka maanta laynagu dhaarinayo inay tahay kama dambaystii masaajidkii gudihiisa waxaynu ka qaadanno baynu la tegaynaa bannaankana la tegaynaa waxaan kaga baxayaa baaq nabadeed baanu jeedinaynaa mid caamaanu jeedinaynaa mid naga guna baanu jeedinaynaa midaannu raalli ka nahay baanu jeedinaynaa waa baaq nabadeed inta na maqlaysa iyo inta waraysata iyo inta na arkaysaba mid run aanu u jeedinaynaa baaq nabadeed oo run aanu u jeedinaynaa oo aanu ilaahay kaga yaabayno oo annagu naftayada ka xishoonayno nabadda qaata kii qaadan waaya allahumma ballaqtu waxba fari mayno dowshagaya ilaahay waysarka shagaya ilaahay dawaysarkaan yaa waxaan ilaahay gelin mayno waxaanu leenahay alla nabadda ha idinku alhaameeyo ilaahay nabadda calooshiinna ha geliyo ilaahay quluubtiinna ha u soo jeediyo yaa warqaata nabaddaannu idin leenahay guurtidii labada beelood annagoo ka kooban halkan waxaannu u taagannahay inaannu nabadgelyo ku dhawaaqno bilaa shuruuda waayo nabadgelyadu annagay dan noo tahay waxaan leenahay labada beeleedba waxaannu ogeysiinaynaa waxaannu leenahay oo beelaha aanu ka tirsannahay ee maanta masaajidkan aanu ka baaqayno aanu leenahay waa nabad weliba guhaan baa ku jira oo ka nabaddaa qaadan waaya waxa lagaga baaqaya masaajid ninka nabadda maanta la wado bela kaga shaqeeya waxaannu leenahay isaga beelaayada Allah ku reebo saasaannu leenahay waxa weeyaan dadku hadduu adinka iyo afkiisa xakameyn kari waayo dee carabka laftiisa in la iska habaaraa waa noqonaysa waxaannu leenahay beelahow maqla ninkii haddeer beelo doonaya waa helay halkan waxaannu kaga baaqaynaa oo aan baryo ahayn oo qasab ahayn oo dantayada ah
inaannu nabad ku baaqno waa ku baaqayna shuruud ma leh waxaannu leenahay haddaannu kufnay ilaahay waana kicinaya nabaddaana waa ku guuxaynaa waxaannu leenahay labada beelood ee haddeer shaqadu ka dhaxaysa aanu haddeer ka dhex hadlayno waxaannu leenahay u dhega nuglaada waxaannu idin leenahay waa nabadgelyo nabad baynu bixinaynaa waa inoo dan cid kastoo nabadda ka shaqaynaysay oo ku fakeraysay nabadda ama Hargeysa ha joogeen ama Burco ha joogeen ama Miyada ha joogeen baaqii nabadda waa anaga sii daynay anagoo ah labadii beelood inaynu nabad ku noolaan karo inaynu u talino ninka nool oo ninkii dhintay lowdo inaynu ninka nool u talino markaad eegto magaaladeennii 25 baa dagaalku ka bilaabmay 24 siday ahayd iyo maanta siday tahay markaad eegto dee maduun waxba ma dhaanto waxa weeye waxay aan kabanno waynu kufnaye waynu kabanaynaa dadweynahana waxaanu leenahay nin walba halkaaga calooshaada nabadgeli nin walba waxaan leeyahay nabad baanu ku baaqaynaa caama ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cuqaasha gobolka Togdheer iyo xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland baaq wacan baanu idin baaqaynaa toliba wanaagsan baanu idinku soo dhaweynaa Cuqaasha gobolka meeshana gobol way tahay se gobol dhow way leedahay hadday gobol dhaafto hadday degmaba dhaafto gobol noqoto ninkii gaarsiiyo dee nabad ugu tali meeraayde baaqna waxaan u jeedinayaa labada dhinac ee istilaya warin maarayaal warheshiya qof idin yimid ma heshiisin karo nabadda aad maanta ku baaqdeen cid badan baa u cadawa kii aan daawalba ka shaqaynayn iminku isna qorigiisa iyo hawshiisa qaadanaya ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee halkan jooga waxaan leenahay meel la wada joogo iyo meel la kala joogaba ammaankooga waxa sugaya ciidanka qaranka waayeel ninka la yiraahdo de waxa loo baahan yahay inuu dadkiisa weel u talo u baahan yahay inuu waayeelayaabo u baahan yahay waxaanu idinku wargelinaynaa idin raacinaynaa ka maamul ahaan waliyudamka dadkii meesha ku dhintay hadday dagaal dambe tahay hadday mid hore tahay wixii meesha ku dhintay waliyudamkoodiina hal la helo waa talabaade waayeelkiina isu dhamaada ninka fidmo walaha ee kari weydaan ee iman waaya de waayeelnimadiisaynu wax iska weydiinanaa waa halkiisa laakiin inagu waxaynu ku dadaalaynaa ilaahayna la kaashanaynaa inaynaan cidna ka maarmin ninna xaajadana kama maaranto saqiir iyo kabiir meel baynu uga soo wada jeesanaynaa labada qodob baan doonayaa inaan anigu bayaamiyo waxaan ilaahay ka baryayaa inay maanta fadhiga aynoo bilaabmay inaanu dib inooga noqon baan ilaahay ka baryayaa waa maxamed suuta telefishinka qaranka Somaliland Ceelaf Weyn